saaxiibayaal waxaanu qaybtan ku eegi doonaa sheeko aanay dad badani war ka haynin waana in taageerayaasha Juventus khaasatan kuwa xag jirka ah ee rigliga ah ee loo yaqaan Curva Sud ay kulan kasta daqiiqada 39aad aflagaado hawada u mariyaan kooxda Liverpool waxaad ogaan doontaa sababta balse intaynan u gadagelin fadlan rukumo tigallada aanu ku leenahay baraha bulshada waxaan idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Xaaji taageerayaasha kooxda Bianconeri ama Juventus ayaa daqiiqada 39aad ee kulan kasta waxay aflagaado hawada u mariyaan kooxda Liverpool sababtuna waxay tahay inaanay ilaawin musiibadii ka dhacday gegada Heysel Stadium halkaas oo ay ku dhinteen 39 taageere oo Juventus ah ka hor finalkii koobka horyaalada Yurub ee Champions League ay ku wajaheen kooxda Reds ama Liverpool dad badan isma oga in taageerayaasha Juventus ay kulan kasta aflagaadayaan kooxda Liverpool haddii ay garoonkooda ku ciyaarayaan iyo haddii ay dool yihiin intaba waliba hadalka ay sheegayaan ma aha mid saaxiibtinimo waxaanay arrinta taageerayaasha Bianconeri ee asalka ah ee loo yaqaan Curva Sud soo wadeen muddo 40 sanadood ku dhow taasoo salka ku haysa dhacdadii dhiigleyda ahayd ee ka dhacday gegada Heysel Stadium oo ay ku dhinteen 39 taageere oo Juventus ah ka hor inta aan la ciyaarin finalkii Champions League ee 1985 ciyaartan waxa ay 29 Maajo 1985 ka dhacday magaalada Brussels ee caasimadda Belgium balse qosolkii lagu sugayay finalku waxa uu mar qura qamuuye isu rogay markii ay taageerayaasha qaswadayaasha ay kooxda Liverpool ay u dhaceen qaybtii ay u badnaayeen taageerayaasha kooxda Juventus tan waxa soo dumay gidaar ka tirsanaa garoonka oo ku dul habsaday taageerayaasha Juventus halkaas oo ay ku dhinteen 39 taageere qaar badan oo kalena ay ku dhaawacmeen taasina waa mid sababta u ah in taageerayaasha kooxda Juventus ay Reds caayaan daqiiqada 39aad ee kulan kasta oo ay kooxdoodu leedahay waliba waxa ay ku xatrayaan halku dhagan u dhanamaya qaabka waa nabcahay kooxda Liverpool qofkii aan taa nagu taageerina waa Ingiriis xun taageerihii ugu yaraa ee ku dhintay Heysel Stadium waxa uu ahaa Andrea Casula oo xilliga 12 jir ahaa waxaana uu la dhintay aabihii Giovanni Casula oo 44 jir ahaa musiibada kadib xiriir kubadda cagta Yurub ee UEFA waxa ay tilaabo ka qaaday kooxaha Ingiriiska oo idil oo laga mamnuucay tartamada Yurub taasoo laga qaaday sanadii 1990 walow kooxda Liverpool loogu daray 2 sanadood oo dheeraada oo markii dambe sanad laga dhimay kooxda Juventus ayaana maamuus u qabata sanad kasta dadkii ku dhintay dhacdadan murugada badan iyadoo waqcado kala duwan ku qabata magaalada Torino halka 2010 oo laga joogay 25 sanadood dhacdadan ay kooxda Liverpool gegada Anfield ku soo bandhigtay boor ay ku maamuusayso taageerayaasha Juventus iyadoo ku soo qortay waxaanu ku xuseynaa 39 taageere ee naftooda ku waayay gegada Heysel Stadium 29 Maajo 1985 in memoria ee Amicizia oo Aftalyaani ahna hoos ay kaga qoran oo la macnaa xusuus iyo saaxiibtinimo Maxamed Xaaji hadal Sama TV